Fanmadeedku waa mid ka mid ah qaababka masrax faneedka waana kan ugu saameynta ballaaran hababka uu aadamuhu ku cabiro dareenkiisa kuna soo bandhiga fikirkiisa kala duwan iyadoo la adeegsanayo hanaan debicsan oo soo jiita qaybaha bulshada. Sidoo kale taariikhda fanmadeedka ayaa ah mid aada u gundheer oo la curatay bilowgii nolosha aadamaha. Horumarka fanka ayaa soo maray marxalado badan oo kala jaad ah, mana sugno taariikh ahaan ciddii ugu horeysay ee si habaysan usoo bandhigta. Inkastoo taariikhyahanadu sheegaan in bilowgii fanmadeedku ahaa 4,000 oo sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise, haddana waxaa cad in bilowgii fankani aada uga horreeyay xilligaas. Culimada aqoonta u leh taariikhda ayaa sheegay in fanmadeedku si dhab ah u hana qaaday wixii ka dambeeyay bilowgii qarnigii 5aad ee taariikhda miilaadiga, waqtigaas oo magaaladii Athena ee dalka Greek laga aasaasay masrax faneedkii ugu horreeyay dunida inta la og yahay. Taariikhda miilaadigu markii ay ahayd 535 ayuu ku guuleystay jilaagii la odhan jiray Tisibes abaalmarintii ugu horreysay ee fanmadeedka. Isla qarnigaas ayaa waxaa ka soo baxay magaaladii Athena 4 curiyayaal oo kaalin lixaad leh ka qaatay horumarkii fanmadeedka, kuwaas oo kala ahaa Askelos, Sophocles, Euripides, Aristophanes, kuwaas oo ilaa maanta loo og yahay in ay ahaayeen aabbihii fanmadeedka.